kuwa waxaa jira macashdoona oo meesha ka shaqeeya oo si sharciya iyo way ku degan yihiin aqoon xalaal iyo xaraam kala garan ku degan ودع يا بوب ما فهمت انت شركه la soo heshiiyay hadii uu isaga iska saxiixay waxa soo dhaqan galeen lidaab anu waxaan qabaa lacagaha noocaas hata Soomaalida lagu ma sheegan karo berit madaxda waxa waaye waa dad wax loo idmaday ma aha dad wax nagu leh anaga awood leh anaga shacabkii anaga ka awood weyn raas Kambooni ilaa raas Caseer wuxuu marayaa xataa in Soomaalidu gaaro qof in jagal laga disho oo meesha u dameyso Soomaalidu oo laga yaabo dad dawladda ku jira inay xataa ka dameeyaan ama ay sidaan soo aragnayba moogta waayihii la soo dhaafay danta shakhsiga oo laga hormariyay dan qaran qalin ummadeed oo loogu adeegay cid gaar ah heshiisyo aan sharci ahayn oo dadyow shisheeye loogu daneeyay kuraasta qaranka oo looga faa'iidaystay dana dhaqaale iyo sadbursi kooxeed qandaraasyada adeega dawladda oo loo miisay casaabad iyo saaxiibo gaar gelista heshiisyo aan xalaal ahayn oo Soomaaliya madaxa loogu geliyay dayn xad dhaaf oo haatan ligliga loo haysto maxaad ka taqaan waxa loogu yeero baayac mushtaka siyaasadda siyaasiyiintu waa dadka ugu badan ee muddo kooban kaga mid noqda maalqabeennada ka mid ahaanshaha nidaamka dawladeed iyo xilalkuna waa fursadda tijaarada lagu helo tan ayaa ah mid baaristu khusayso عديما عد أو مسق يا برنامج كقضاء وضن sidoo kale liiska shakhsiyaad dalka madaxdiisa haatan iyo horeba soo aha kuwa haatan xasaanad ummadeed huwan qaar shacabku u haysto inaan dalka cidi uga lixijacla badnayn ayaa aad baadigoob wajiyadooda dhabta ah ku daawan doonta baaristu waxay nala gashay inaanu iridaha guryahooda ku garaacno mas'uuliyiinta xogaha musuqmaasuqu la xidhiidhaan waxaa kaloo qayb ka ah inaan iyagana tagnay ganacsiyada laga tabcaday xilalka ummadda xogaha musuqmaasuqu xarunta xalane ayay nala galeen oo aanu cagta dhignay baahida ugu weyn ee shacabku qabo ayaa ah kala ogaanshaha yaa adeega dadweyne ah yaase ku adeegtay qalin ummadeed waxaan rabnaa oo aan ognahay inay jiraan dadka wanaagsan aan naqaano ee ummadan wax u galay laakiin maxaa inoo diidayo inaan soo helno oo aan soo qaban dadka dhibka u geysto ummadan xataa qaar haweenkooda iyo xaasaskooda ay shareholders ay ka dhigeen dhibaatada dadka geystay حتى انت المحكمة كانوا هلا عفوا جلروا لكن horta ay qartaan dambiyada ay qartaan baadigoob doorkan wuxuu gacanta gelin doonaa siraha musuqmaasuq ee ku duuban xeebihii banaad caasimada looga taliyo dalka Soomaaliya ee muqdisho